warqadaas waa jirta anaa qoray iyagaana iweydiisay codsi ay soo qorteen ayaa anaguna aan ka jawaabayey waxayna ahayd inay qabaan lacag boosaaso uga soo degtay ama u taallay inay kasoo qaadaan oo xabar keenaan lacagtaasi cadad kuma qornayn laakiin qiyaasta waxaan ciidanka meeshaan joogay yaan ku qiyaasin lacaga aan badnayn bay ahayd muxuu ahaa markii aeroboortka la tegay diyaaradiibana ay timid hadda kahor waxa hadda anigaan bilaabayna maahane horay u jiri jireen mar kasta waa ka qori jireen taliyayaasha laga qori jiray markii la qabsaday qolada aeroboortka soo waxay yidhaahdeen nimankaan diyaarad bay lacag ku keeneen waxaan rabnaa inaan ogaano tiradeeda iyaguna waxay leeyihiin maya waxaa tiri iraada lacagtaan muxuu ahaa tiradeeda in la ogaadaan rabaa weliba waxaan wacay nin iyada iyo annaga noo dhexeeyo sarkaala oo jenaraala waxaan ku yidhi warqad soo qor hadda cadadka kusoo qora oo aad uu sheegaysaa lacagtu intay tahay arrintii ma dhicin markii dambe oo aeroboortka aniga noo iman qoladii wasiirka waxaa joogay dalkiiya dhulkaa joogay qoladii aeroboortka markaan tegay muxuu ahaa waxaan ku yidhi lacagtaan adiga waxaa la walaa waxay la wareeg oo qaado markii lacagta lasoo dejiyey waragama wareegayo maxaa la wareegayo meelaan geeya waanu maaqan soo la wareegaa lacagtaan waxa weeye tiradeeda hala sheego kadibna dawladda hala wareegto iyadoo gacanta lagu qabto waana ka tegay ani saasaan uga tegay marka dambe lacagta waa la qaada waa gartay marka warqadan markaad qorteen ee dhahday lacagta waa ha loo keeno ha loo ogolaado imise maalmood bay ka horreysay axaddii markay diyaaraddu timid maya subaxii awal baa mid hore inta la qoray waa baanduulaha xoog oo qoray bay lacagtaasi bay ka baaqatay soomaaliya uga baaqatay maaqaan marka hadda maadaama anigu aan joogo anaga iga qoreen subaxii diyaaraddu imaanaysa waxa warqadaan qora aniga saxiix waa gartay marka kumana aysan sheegin 9,600,000 imanaysa iyo 1,000,000 ay tahay midna kuma sheegin maya laima sheegin aniga lacagta qiyaasta waxaan islahaa 2 milyan hadday ugu badato kama badnaa mushaarka iyo waxyaalaha iyaga maaragtay meelaha xukumaha mushaar kama badnaanayso meelahaas waa gartay marka laakiin lacagahani ma iman jireen ciidanka ilaa iyo waa imaan jireen anu cadadka ma aqaan intii imaan jirtay maaqa lacagdadka laakiin waa imaan jireen lacagta waa gartay marka lacagtani maxay uga duwan tahay lacagii hore iman jiray aniga horta waa markii ugu horreysay oo ay aniga weydiistaan wey kuwii hore intay ahayd say isticmaalaana kama warqabin laakiin waxaa laga yaabaa hadaan waxay sababaha tahay ma garanayo hadaan markii hore la baari jiray hadda wax loo baaray ma aqaan hadday markii hore sheegi jireen oo baari jireen hadda waxay u diideen ma aqaan marka waxaas wax u baahan in dib loo raaco waa gartay markay adig ku dhaheen lacagtan noo saxeex aan la soo baxnee miyaad la tashatay madaxda kale ee dawladda sida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo kale lacagtaasaa imanaysa maxaa ka yeelaamata maya lama tasho waxaan waa wax ciidan aan ogahay oo aniga noo xaraysan oo meel jooga ayay nimankaan oo noo tababareen bay lacagta siin jireen marka uma baahna inaan idhaahdo muxuu ahaa lacagtaasaa u imaanaysa awalba waa u imaan jirtay laakiin saan kuu sheegay wax ku xiran ma ahayn madaxda sare waxa ay ku qabanayaan may kuu sheegeen lacagtan oo ay dhahayaan intaasaan ku qabanaynaa intaasaan ku qabanayna may saasuma cadda oo warqada kuma qorna waa aragtay dooda codsigoodaana kuma qorna anigaan qoreyna kuma qorna laakiin waxay ku qoreen ciidanka raashinkiisa iyo lacagtii mushaaradka inay yihiin lacagta cadadkeedana may soo raaciyeen marka ma ku qoray may kuma qorna waa gartay marka ma ku raacsantahay dawladdu inay la wareegto lacagtan oo maxaanku sida hadda la sameeyey baaritaanna lagu wado aniga intaan ku dawladda gacanteeda ku jirtaa iyaga ayaana waa la baari doonaa lacagta inta tiradaas iyo waxa loo isticmaalayo iyo waxaasoo dhan hadda wax dawladda u yaalla wey waa gartay marka iyagu waxay leeyihiin lacagtan dawladdu inay qabsato ma ahayn sababtoo ah horey u sii ogaayeen dawladdu warqadaadii aad saxeexday bayna soo xiganayaan oo ay maaragtay ugu muhiimsan iyo heshiiskii 2014 siday ku qoreen war-saxaafadeedkooda shalay marka dawladdu hadday sii ogeyd oo adigoo taliya aad sii ogaa maxaa loo qabtay lacagta aniga sababahaas hadda inaan dabagala ma rabo aniga waxaan ogahay lacagtii waa yidhahdeen ciidankaan u wadnay haddii wixii ciidanka la siin lahaa in la baaro oo waxaana ciidanka u socdaan mise wax kale u socdaan in la baarana waxaan ka qabaa ma jiraan arrintan ku saabsan ciidanka
imaaraadku ay tababari jireen maanta waxaan arkay warbixin uu wasiirka gaashaandhigu siiyey idaacadda dowladda oo leeyahay ciidamadan waa la qaybinayaa, ciidamadan lagu kala darayaa, mushaarkoodana hadda wixii ka dambeeya annagaa bixinayna. arrintaa waad la socotaa soo ma? waa la socdaa. marka waa go-aan la gaadhay in ciidankaas mushaarkooda dowladdu la wareegto, ciidamada kalena lagu kala daro. saas weeye. taasi ma waxay ka dhigan tahay doorkii imaaraadka ee ciidankaas, ama hadday tahay tababar, ama hadday tahay saad, ama hadday tahay mushaar, inuu dhammaaday? arrimahaas waa arrimo siyaasad ku xid. marka hore heshiis baa lagu galay, haddii laga baxayona xukuumadda iyo labadii dowladooda kala galay baa ka baxaya, ama hadday ku qoran tahay daraf baa ka baxaya. laakiin waxa aniga igu xiran maaha, aniga ciidanka inay i tababaraan oo kadib aan adeegsada ayaa muhiimadda ii tahay. marka waxaas waa wax ku xiran dowladda. waay, su-aasha ugu dambaysa, ciidankan imaaraadku hadda yay ka amar qaataan xilligan aan joogno? hadda annaga naga amar qaataan, annaga ayaa amarna, annaga ayaa hadda ka hor la wareegnay, annaga ayagu markay tababareen waa hubaynay, haddana meesha ay joogaan annaga inoo joogaan.